Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت سو dhawaada dhammaan waa mahadsantihiin sida title-ka video ka muuqata insha Allah video-gan waxaan rabaa inaan kaga hadlo arrimaha xasaasiya oo security-ga smartphones-ka aynu sidano kamid ah ku saabsan maalmahan dambana smartphones-ku waxay kamid noqdeen daily life-keena oo waxay noqdeen wax inaan ka maarmayn. They travel with us, they sleep next close to us. Waxaa laga yaabaa qaarkood musqusha mas-uuliga inay la tagaan noloshaada oo dhan way kula socdaan. Waxaan rabnaa insha Allah in waxyaaba security-ga ku saabsan smartphones-ka aynu sidano inaan video-gan kaga hadlo insha Allah iyo qaabkii loo xalin lahaa haddii ay waqtigu inoo saamaxo. Waxaan xooga saarnaa telefoonka imika aan hayaa waa Android. Systemka aan rabaa inaynu security-giisa aan wax ka nirahnaa waa telefoonada Android-ka sida Galaxy oo kale. Marka labada arrin aan xooga saaraya waxa weeye oo dad badan aan arkay oo warwar ku haya kamarada iyo microphone-ka. Haddii ay warwar kugu hayso kamarada ama microphone-ka telefoonkaaga oo aad aaminsan tahay in kamarada telefoonkaagu ay ku duubayso adigaan isticmaalayn ama aan ogolaan oo permission siin, microphone-kuna sidoo kale uu codkaaga duubayo, haddii warwarkaasi jiro keligaa ma tihid, dad badan baa kula qaba. Community-geena Soomaaliyeedna waxaad u malaysaa inaanay arrinkaas u dhuun daloolin ama aanay danka lahayn oo dadka qaar ay ku leeyihiin I don't care maadaama aanan wax xunba aanan samaynayn ama wax khaldan aanan ka hadlayn, waxay doonaan ha duubaan ama waxay doonaan ha iga record gareeyaan. Laakiin mentality-ga noocaas ah waddamadan qurbahaynu ku noolahay dadku caynkaas uma fikiraan. Waxay u fikiraan qaabkaas ka duwan. Waxay yaqaanaan rightskooda iyo xuquuqda ay leeyihiin. Marka waxay eegaan rightskooda ma ka mid tahay inaan lagu duubi karin adigoo aan ogolaan ama permission siin. Haa. Marka waxay aaminsan yihiin don't give up your rights. Xuquuqdaada ha ka tanaasulo. Marka innagana insha Allah dadkeena qurbaha ku nool xitaa dadka waddankii ku nool security-ga telefoonkaaga maadaama uu mar walba kula socdo meel walba uu kula joogo waxaa loo baahan yahay inaad ka taxadarto. Marka insha Allah maadaama aynu nidhi telefoonadu kamarada ayna duubaysa, microphone-kuna codkeena uu duubayaa iyo activity-keena iyo waxyaabaha aynu samaynayno ku hadlayna oo dhan maadaama aanu eedda ay soo jeedinay waa inaynu caddaynaa. Waxaan rabaa insha Allah inaan idin tuso waxa aan ka hadlayo. Telefoonada aad sidataan waxaa laga yaabaa dadka qaar marka aad arrimaha xasaasiya ka hadlaysaan in meel gaar aad tagtaan oo istirahdaan privacy raadiya oo meel aan idin maqlay aad tagtaan. Waxaana dhacda badanka qofka inuu telefoonka jeebka ka soo saaro miiska saaro ka labadiina qof ee wada hadlayaa ninka odayga hadduu idin dhex yaalo codkiinu wax privacy leeyahay ma jiraan. Kamaraduna waa idin duubaysaa codkiinuna wuu duumayaa microphone-ka codka duubaya. Marka insha Allah aan idin tuso waxaanu tegaynaa setting-ka telefoonka setting-kiisa markaad tagto waxaad tegaysaa meesha geeska right corner-ka ay ku qoran tahay apps-ka markaad tagto waxaad tegaysaa meesha ka hooseysa ay ku qoran tahay application manager-ka markaad tagto waxaa ku soo baxaya apps-ka telefoonkaaga ku jira oo dhan haddii ay yihiin kuwa company-gu ku soo shubay oo default apps ah oo ku yimid telefoonka iyo qaar adigu ku shubta labadaba. Qof walba qofka kale telefoonkiisa uu ka duwan yahay. Waxaa laga yaabaa apps-ka aniga igu jira adiga inaan kugu jirin. Marka waxaan rabaa kuwa default-ka ah ee ku yimi telefoonka oo aad wada garanaysaan qaar ka mid ah inaan idin tuso inay kamaradaada isticmaalayaan microphone-kaagana isticmaalayaan. Marka hoos u soco ama aniguba hoos aan u socdo inta aan ka tegayo app aad garan kartaan. Google Chrome kale ka soo qaad ku dhufo Google Chrome. Google Chrome markaad furto uu keena halkan waxaad tagtaa meesha ay ku qoran tahay permissions oo macnaheedu yahay fasaxyada uu telefoonkaaga u haysto app-kani. hal mar taabo. Sida aragtaan kamarada ugu horeysa way shidan tahay waa on. Kamaradaada wuu isticmaali karaa ama ogow ama ha ogaanin ama ogolo ama ha ogolaanin. Waxaa ku xiga contacts-kaaga dadka telefoonka kuugu jira magacyadooda iyo nambaradooda.
waxa ku xiga oo saddexaad locationka meesha aad joogto mar walba waa la socdaan. ka afraad ee ku xiga waxa weeye microphone-ka codkaaga marka aad hadlayso iyo marka aad hadlaynba mar walba uu shidan yahay, waa duubi karaa waana dhegeysan karaa. storage-ka ayaa ugu hooseeya. storage-ku dhib ma laha, waxa laga yaabaa waxaad soo download garaysay in storage ahaan ugu isticmaalaan. backday aan ka noqono. aan hoos u socdo si aan u helo mid kaloo ay la fahmi kartaan oo garan kartaan. waxaad eegtaa Google Play Services. waa Google Play Services waa Google Play oo wada garanaysaa meesha markaad appska aad soo install garaynaysa aad tagto ku dhufo hal mar. sidii oo kale waxaad tagtaa permissionska markaad tagto kamarada ugu horeysa, contactska ugu horeeya, ku xiga locationska, microphone-ka, SMS-ka xitaa waraaqaha aad dirayso. masalan Google Play Store oo ah meel laga soo dejisto apps-ka cusub, maxay uga baahan yihiin kamaradaada, locationka aad joogto maxay uga baahan yihiin, microphone-kaaga maxay uga baahan yihiin, SMS-ka iyo text message-ka aad dirayso maxay uga baahan yihiin. waxay ku cadaynaysaa in intaba ay la socdaan ku dhegeysanayaan ama ay ku record garaynayaan ama ay kamaradaada isticmaalayaan. asagana back dheh, hoos u soco. waxaad tagtaa messagesku waa meesha aad text messageka markaad dirayso ama warqad qof aad u qorayso aad ku dirto ama warqadda qof kuu soo qoray aad ka akhrido. messageska kili garee, asagana permissions tag. appkaas waxaan u isticmaalnaa in warqad aad dirto, warqad lagu soo dirayna aad akhrido. caqliga caadiga saliimkiina wuxuu ku siinayaa in warqaduna aad ku dirto, warqadna aad ku akhristo, wax kale inaanu appkan isticmaali karin. laakiin wuxuu isticmaalayaa ana on ka dhigi weli markii hore of ahead kamaradaada, contactskaaga, locationka aad joogto. SMS-ku waa shaqadii loogu talagalay inuu kaasun isticmaalo ahayd. intaas waxaan u malaynayaa ku qanci kartaan in eedeynta aan usoo jeedinayo telefoonada inay kamarada iyo microphone-kaba inaga record garaynayaan. waxaan u malaynaya inay caddayn u tahay oo aad fahmi kartaan waxaan ka hadlayo. marka tallaabada ugu horeeya eenu qaadina waxa weeye insha allah waxaad tegaysaa dhammaan intii aan ama abiska kuugu jiro o dhan mid mid u tag. intii aan sheegnay aan ku noqono. Chrome-ka oo kala tag. waxaad tegaysaa permissions meesha ku qoran tahay. waxyar raali noqo kala horeeyeen. waxaad ku dhufanaysaa meesha permissions ku qoran tahay. markuu kuu soo baxo waa intii markii hore aan idin tusayey. kamarada uma baahnid, off ka dhig. contactskaagana uma baahno, off ka dhig. locationkaagii meesha joogto inuu la socdo uma baahnid, off ka dhig. if you deny this permission, basic features of your device might no longer function as intended. uma baahni. microphone-kaagana uma baahna inuu isticmaalo. storage waa macquul. ka bax back dheh. waxaad tagtaa messaging app oo kale ama Google Play Service. actually mid mid u tag, mid alla midkaad ka shakaysantahay ama dhammaantood wada check garee. messaging app oo kale asagana tag. sidoo kale waxaad tagaysaa permissions. kamarada demi uma baahnid. contactska oo kale waa macquul waad u baahantahay. locationkaaga laakiin uma baahnid. phone-ka asaga iska dhaaf. SMS-kana waa may SMS-kana ku shidnaado. inta kale iska demi. intaas waa intii phone-kaaga gudihiisa aad ka samayn karto ee on aad ka dhigi karta ama off aad ka dhigi karto. adoo intaaba in off ka dhigay oo wada demiyey, haddana haddii shakigu uu jiro oo aad isleedahay kamaradaada waa la isticmaalayaa, waana dhici kartaa in meelo kale haddana abis kale oo aan ogeyn inta abay kugu jirto o dhan ma wada control kartid dhammaantood. haddii 4 2 3 5 aad off ka dhigtay waxa laga yaabaa qaar inaad ilowday. waxaan rabnaa marka insha allah in kamarada iyo microphone-ka labadaba aynu block garayno. wax isticmaali karaa aanu jirin ina adigu permission iyo fasax aad siiso mooyaane oo gacantaada aad ku furto. waxaan tegaynaa Play Store-ka.
play storeka markaad tagto waxaad ku qoraysaa kamarada aan ku horeyna camera guard waa app aynu soo dejisanayno appku hadday aragtaan waa calaamada madow ee kamarada yarna isha yar kamarada ku dhex sawiran tahay already aniga wuu igu jiraa markaasaan waqtiga nooga lama ku celinayno install baad ugu taabanaysaa kabacdi wuxuu appka telefoonkaaga ku shubaya ama uu ku degayaa aan idin tuso waxa uu qabanayo backde appka waa kaas telefoonkayga already wuu ku jiraa marka waxaan isku dayaa kamaradeeda inaan isticmaalo kamarada ku dhufo haddaa arki kartaa messagekaas wuxuu soo qoray aan ku celiya mar kale kamarada ma isticmaali karo wuxuu soo qoray security policy restricts to use your camera security policyga telefoonka ayaa diidaya in kamarada la isticmaalo marka kamaradaada wax isticmaali karaa ma jiraan ama wax galayn karaa adigu markaad rabto inaad isticmaasho appkaad dib tagaysaa kabacdi halka on tabaad off ka dhigaysaa waad ogtay kule markaad kamarada isticmaalaysa intaad kamarada furan ama snapchatkii ama facebooka aan isticmaalin ka hor iska sii dayn markaad dhamaysatana ontii ku celi kaas waa kamarada waxaa rabnaa microphonekana sidoo kale asigana inaan kula koreyno oo adiga permissionkaaga la-aantiis aanad isticmaalin sidoo kale waxaad tegaysaa play storeka waxaad ku qoraysaa microphone guard ama mic guard aniga already wuu igu jiraa already waan ku install gareeyey markaad appka aad kuu soo baxo install baad tegaysaa markuu dhameeyo kabacdi open dheh marka asagana on baad ka dhigaysaa asagana on markaad ka dhigto microphonekaaga waxa garayn kara ama isticmaali kara ma jiraan xitaa qof hadduu ku soo waco waxaa laga yaabaa inayd ismaqli weydaanba ilaa appka aad demiso marka insha allah marka aad arko qof inuu soo waco inta telefoonku dhacaya iska demi isagana haddii ay ismaqli weydaan weye insha allah marka insha allah waxaan malaynaya videogeeni fahmay insha allah haddii aad wax ka faa'iiday oo wax ku cusub ay tahay insha allah dee tasamaha jecel ha uga mid noqdo subscribe gare wixii aad fahmin commentka igu soo weydiiyey share garayna insha allah qof kale walaalka wax laga yaabaa inuu faa'iidaysto share gar haddii la yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu